السلام عليكم أمان معشقين تحيسيسا كونامي أما Efootball موريل بادوينا كجوكتان كسود هذا مقال عصب halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy Gamer kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa warbixinadii u dambeeyay oo ka imaaday dhanka iyo Efootball-ka ayaan kula wadaagi doonaa waxyaabo badan ayaan markaasi ku xasuusin doona oo ku sheegi doona please waxaan ka codsanaa haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkan soo booqato waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkan aad subscribe dhahdo gambalaalkan aad markaasi furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro aad iyo aad u mahadsantahay intaas haddii aad ii samaysay saaxiib inta subscribe haysana fiiri 5,000 wax yara ka dhiman waa gaarsiin kartiin waana idaafi kartiin weli 5,000 wax yara ugu dhiman intaas oo subscribe ayaa haysanaa please waxaan ka codsanaa haddii aadan weli subscribe ii saarin inaad subscribe ii saarto muuqaalkan alla gareyso kadib gambalaalka aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro aad iyo aad u mahadsantihiin intaas haddii aad ii samayseen muuqaalkeenii ayaa gudaha usii gelaynaa dhalinyaro shirkadda Konami ayaa waxay shaacisay Cristiano Ronaldo oo big time ah inay keeni doonto oo markaasi Real Madrid 2018 ayay keeni doontaa asoo markaasi dhalinyaro ah ayay keeni doontaa Ronaldo oo markaasi duqoobay oo Al Nassr way keentay haddana waxa ay keeni doontaa Cristiano Ronaldo oo markaasi dhalinyaro ah oo 2018 xilligii uu ciyaarayay Real Madrid ayay keeni doontaa oo markaasi uu gaarayo 105 ayay keeni doontaa laakiin waqtiga saxda ah ay keeni doonto ma aysan shaacinin shirkadda Konami sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabaha kale oo cajiibka ah markaasi gameka ka cusub oo imaan doono waxaa imaan doona IDGs loogu magac daray GOAT haddii aad maqli jirtay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi yaa GOAT ah hadda waxaa la keeni doonaa IDGs loogu magac daray GOAT Spanish League Attackers oo u horeey Lionel Messi Torres Bell saddexdan ayaa ayagana la keeni doonaa laakiin waqtiga saxda ah ay shirkadda keeni doonto lama shaacinin sidoo kale GOAT European Club Attackers-kan ayaa la keeni doonaa oo u horeeyo Cristiano Ronaldo oo 2018 ah Lionel Messi oo 2007 ah Romanji oo asigana markaasi ah 1979 sidoo kale waxay keeni doontaa GOAT Cubs Efootball 2025 waa wari rag culus ba halka ugu jeeda ragga waxay gaari doonaan 110 IBGs dib iyo xola waay in shirkadda Konami ay soo kordhinaysa ayaa la shaaciyay marka waqtiga saxda ah la keeni doonana ma shaacinin ciyaaryahannadan waxa uu horeeyay Johan Cruyff Batistuta ayaa u jeeda Bayol rag badan Casillas rag badan ku jiro intaan inay keeni doonto ayay shaacisay shirkadda Konami ama Efootball sidoo kale waxay shaacisay inay keeni doonto Romanji oo kanihiis ah oo 1979 ah asoo dhalinyaro ah inay keeni doonto ayay shaacisay GOAT Italian League oo u horeeya Maradona Del Piero Inzaghi raggan rag culus bay shaacisay shirkadda Konami inay keeni doonto IBGs on weli loo arkin qaab casri ah inay u keeni doonto ayay markaasi shaacisay waaway IBGs kana ugu daran waxaa la leeyahay GOAT Best Player ya haddii aad maqli jirtay playerka ugu fiican waa kee waxaa la keeni doonaa the GOAT Best Players IBGs loogu magac daray ayaa la keeni doonaa oo u horeeyo Lionel Messi oo ah 2007 asoo markaasi dhalinyaro ah ya asoo markaasi dhalinyaro ah ayaa la keeni doonaa sidoo kale Cristiano Ronaldo oo 2012 asagana markaasi dhalinyaro ah oo Real Madrid markaasi ciyaaray ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Neymar GR asagana markaasi 2014 ah oo dhalinyaro ah ayaa la keeni doonaa Lionel Messi waa big time waa kii hore oo beekal ka horeeyay la keenayay oo 107 gaaray oo kala waay 107 ayuu ku imaan doonaa sidoo kale Neymar asagana wuxuu ku imaan doonaa 103
Cristiano Ronaldo asagana wuxuu ku imaan doonaa 105. Shirkadda waxay kaloo shaacisay in ay casriyeyn doonto kaamirooyinka garoonka, in ay casriyeyn doonto ayay sheegtay oo markaasi laga dhigi doono kaamirooyin fasiix ah oo qofka si waadax markaasi loo arkayo sida Premier League oo kale. Sidoo kale waxay sheegtay in ay bedeli doonto celebrationada ciyaaryahanada Efootballka. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa worldwide clubs. Haddii aad hore u arki jirtay 2022 in GB wax lagu iibsado, shirkadda hadda way soo celin doontaa update-ka ka dambeeyo waxaa la soo celin doonaa GB in aad wax ku iibsato. Update-ka ka dambeeyo shirkadda waxay keeni doontaa in markaasi GB aad ku iibsato ciyaaryahano albigis ah. Albigiskan ayaa la keeni doonaa adigoo markaasi ku iibsan karto GB ama coins labada aad ku tuuran doonto. Waxay sheegtay in GB wax lagu iibsan karo sidii Efootballkii hore. Raggii hore ayaa yaqaan saaxiib coins-yadan wax lagu iibsanayo. Sidoo kale albigiskana la keeni doonaa oo u horeeya dalbiyeera ayagana markaasi lagu furan doono GB ama coins midka doonto ku furanaysid. Sidoo kale albigiskan ayagana la keeni doonaa oo u horeeya Diego Forlan 100,000 oo GB ah ama 100 coins ama 900 oo coins ayaa ku furan doontaa. GB-na waa ku furan kartaa, coins-na waa ku furan kartaa. Sidoo kale worldwide clubskan oo u horeeya Sedorf, Deco, Adragan, Cafu, raggan ayaa ayagana markaasi la keeni doonaa adoo markaasi GB aad ku furan karto, coins-na aad ku furan karto. Sidoo kale raggan kalena ayagana waa la keeni doonaa. Rivaldo ayaa u horeeya raggan ayagana adigoo markaasi GB-na lagu furanayo wax walbo markaasi coins iyo waxaasna aad ku furanaysid waa la keeni doonaa. Sidoo kale albigiskan oo Puyol u horeeya Johan Cruyff iyo raggan ku jiraan ayagana waa la keeni doonaa. Sidoo kale update-kii ticket-ka alaabta ticket-ka alaabtii ticket-ka ayaa doonka lagu soo kordhin doonaa. Alaabta ticket-ka oo albigiska saddexda albig aad ku bedelanaysid hal albig oo big time ama double buster ah ku bedelanaysid ayaa la soo wadaa. Ticket-kan ayaa qof walba hadalaya ayaa la keeni doonaa. Update-ka ka dambeeyo waa shirkadda, laakiin ilaa hadda waqtiga saxda ah ay keenayso ma aysan shaacinin. Waqtiga saxda ah la keeni doono weli lama shaacinin, laakiin in la keeni doono ayaa la shaaciyay. Sidoo kale waxaa gameka lagu soo kordhin doonaa wax la yiraahdo Master League. Master League wax la dhahayo ayaa gameka lagu soo kordhin doonaa, laakiinse weli lama shaacinin waqtiga saxda ah oo gameka markaasi lagu soo kordhin doono Master League-gan. Saaxiib warbixintan aan kula wadaagay shirkadda waqtiga saxda ah ay keeni doonto ma aysan shaacinin, laakiin in ay keeni doonto ayay shaacisay. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay dad muuqaalka dhammaadkiisa nala soo gaartay. Waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like sarto, channelkana aad subscribe dhacdo, dambalelkana aad furato si muuqaal walba oo soo dhigo uu kuu soo gaaro.